ururka dhalinyaradu nabigu la hadlo wuxuu yiri ninkii karaya inuu guursado nabigu calayhi salaatu wasalaam qofku markuu guursado diintiisa kala badh buu soo gaaray kala badhka kalena ilaahay ka baqa buu nabigu xadiis kale ku yiri guurkaas farjigaagana uu ku ilaalinaya indhahaagana uu ku xafidaya hadaad karayn oo awoodii lagu guursanay maanta aanad haysaninna waxaad ku dadaashaa ma aragtaanay soonka buu nabigu badso isniintii khamiista la soomaa ayaamal biidka la soomaa soonku waa tarbiyad weeyaan yukassir ash-shahwa Aisha radiyallahu anha waati oran jirtay bidcadii ugu horeysay ummadda nabi maxamed ku dhacday nabiga dabadii waa dharaga beetri waa dharaga qoom markay dhargaan caloosha ay buuxiyaan way shishlaadaan oo jirkooga ayaa cayila shahwadooduna way kacdaa dadna way qooqdaa oo shahwadooda ayaa kacda yaqiintooduna way daciiftaa bay tiri daraga badan shahwada ayuu kiciyaa gaajaduna shahwada way jabisaa lidaalika soonku waa cilaaj weeyaan shahwaadkaaga waxa jabinaya waa soonka weeyaan wa ilaa hadaad zawaajka karaysa inaad guursatidna guurka ilaahay baa inoo fudeydiyay iska guursada oo guurso gabadha diinta la guurso teed guursan تقروح بدن له ما هيجن فاظفر بذات الدين تربت يداك ابو النبي عليه الصلاه والسلام وروح هيجن نصب هيجن دقالها هيجن دقالها كو قادن قروحنا كو قادن ريرنا كو قادن هذا صدخدا غبدha aad guurkaaga asaas aad uga dhigtaa waad ku lugooday ogow waxaad qaadataa ابو النبي leeyahay gabadha diinta la qaado Anas bin Ammar al-Asma'i ayaa loo yeeray aabihii baa u yeero ku yiri galabta aroos baa tahay soo meedo diyaar garooba lagu yiri waa nin dhalinyaro ah oo qurux badan bariga dhalinyaradu ma haasaaween imika inagu waa iska haasawdaan zamanka dhalinyaradu waa balaaya adduunyada ka dilacday dadku bariga way asturnaayeen oo inakuna dadkiisi waalidka uu ka warsugaayay inantuna waalidadeeda bay ka warsugaysay markaas uu ku yiri aabo inan baan ku soo helo aroos baa tahay عقدينا إما كان سمينا يسود يارجرو دركا صاحره دركا يبو صاحدي قادي با يمدو غبدي ولا بخيو اهل كيدين way joogan عقدي با dhacay isla habeenkii ba gabadhi waa loo wareejiyay qolkii gabadha arosadu ay ku jirtay markuu u soo galay waxay noqotay gabadh yar oo kuusan oo isaga aanan cajabin isagu laakiin waa nin dheer oo cad oo qurux badan ma sha Allah iyadii laakiin waxay noqotay tiyar oo gaaban oo yar kuusan oo isaga aanan cajabin ilaa daayiman dhalinyaradu maxay jecel yihiin ya gabadha dhalinyaradu maanta ay jecel yihiin waa gabadh uu doonaya sida isagu uu doonayo in loogu abuuro markuu galay buu arkay gabadhii iyaduna way ku faraxday ninka quruxdiisa iyo suuradiisa iyo isaga laakiin ma cajabin markaa bay ku tiri hanixin bay ku tiri ha murgin khayr baa laga yaabaa ilaahay inuu ka soo dhaxmariyay ha murgoon bay ku tiri markaasuu hadalkeegii buu ku farxo wuxuu isiri kullay hooyadaa iyo aabaha gabadhan waxay kuugu dooreen waa khayr ku ogyihiin ilaahay azza wa jalla taacada waalidkaaga kugu hoojin maaye waalidkaaga iska adeeco iska barakayso habeenkii u horeysay uu aroos galay ayaa ilaahay ducadii u aqbalo caloosheediiba isla markiiba ilaahay ilmu dhigay ilmihii wuxuu noqday imaam Malik bin Anas buu dhalay ninkaasi imaam Malik bin Anas madhabkeena Shaafiiciga sheekhna imaam Muhammad bin Idris al-Shaafici rahimahullah macallinkii uu cilm al-hadiiska iyo kutubta uu ka bartay ayuu wiilkii yara dhalay baa leeyahay wiilkii dhalinyarada ahaa wuxuu ku xurtay imaam daar al-hijra imaam haddaad gabadha diinta la aad dooratid awlaad barakaysan oo culamaaya oo ilaa qiyaamaha adigana ku soo ducaysa ilaa qiyaamahana cilmigooga ummadu ay intifaacsato ayaa ilaahay ku soo dhaxmarinaya lidaalika farjigeena waxa ku ilaalinayna waa soonka iyo guurka xalaasha haddii safar loo geli jiray barashada quraanka kariimka haddaba quraanka waxaad baranaysaa adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo dugsiga barashada quraanka kariimka la dacwa quraan online duruusta ku haya waxaa ka mid ah akhrinta iyo qoraalka sixidda dhawaqa xifdinta quraanka kariimka haddaba isqoristu waa ay socotaa haddii aad doonayso kala xiriir taleefanada shaashada
xarunta xayeysiimaha ee all waxay ku xayeysiinaysaa xayeysiimaha kale ah quraanka online-ka iskuulada iyo jaamacadaha isbitaalada iyo ganacsiyada haddaba haddii aad doonayso kala xiriir taleefankan